هذا دليرتي كشغينيسay diiwaangelinta gobolka Saaxil maanta waxa uu noo sheegay barasaab in ay joogtistahay shaqadiina fasax laga galay bilaal lacaga iyadoo heshiisna lagu la galay waxa halka ka muuqato barasaabku leeyahay heshiiskii aad wada gasheen 3 bilood ahaa waxa idin kaga baxday maxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda iyo governmentalka heshiiska marka uu burayo laba dhinac uu ka yimaada terminationkiisu waxa uu ka yimaada ama governmentalka ama employee-ga annagu haddaan nahay shaqaalihi ka shaqeynayay diiwaangelinta حاجة يجي وح الله وح بريني هالشيء كمان نهار إيمان لكن سوى حين عدين دولته إن هالشيء كب حن تاسنا وح نقنيسا إن محي هذا عن قرشة بالله هينين ديوانجلنتي لقونا فشل مي ساس وقت إلا يمكن وح نعديننا إن عن جوابه اللو بحيي عن حلكو دي قرشة هدي سيد اللو معمولي أنا عدين عن لو حنا لو قرش تلقي طلب كنا ديكريتو يمحي هذا أسكر أيا لو رجع ساسا وجيسنا صحافة ده يمحي هذا برساب كمركي هذا عبتين محمود ينكو شوان برساب كم حنوجها شبابي وحلا لو حد عاقل يقول لي هذين ما شرتو قبل هذا لقبته قبل هذا أنا وحلا لقبنا ما شرتو والساحل أوكلياته markii aanu sii weydiinayna waxa uu ku hanjabeyba inuu xiri doono yamiiska hay garaacina anaga hanoo xidhaan barasaabku noo raacay in bishu ay 10 bishu maanta 10 bay marayso waana shaqeyno goobaha shaqana waana loogu yimid 10 ka cisha bisha hatta ay kontraktiga nagu jirtay ee walibana bishu aan dhamaan 20 ka cisha cid aan u raacayni cid aan ku leenahay toona aan jirin marka ugu horeysa waxaan maanta ka hadlaynaa waxaan shaqaalihii diiwaangelinta ka shaqeynayay ee ay u soo igtay waxa ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha inay ka shaqeeyeen degmada Berbera gobolka Saaxil aseeshee agreement-kii aan wada saxeexnay ee contract-kii aan la galnay wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu ahaa 3 bilood oo haddii loo baahdo extension lagu dari karo saaka un baan ogaanay goobihii oo shaqeynayay inta la yiri qalabkii soo qaada bishiini 2 bilood maxay tahay bishiini 20 bisha imka 10 ka maanta malihidin contract-kiina saasa la contract-kiina nagu ma jirin marka aanu arrinka ugu weyn aan ka cabanayna waa arrinka haddii uu yahay arrin dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ay wareegto ugu soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha waxa laala waxaan ka qabnaa ma jirto annagu waxaanu dood ka qabnaa wasaaradda arrimaha gudaha inay wareegto ka soo saarto haddii 3 bilood ee aanu contract-ka annagu la saxanay wasaaradda arrimaha gudaha haddii uu yahay arrin sax ah annagu waxaanu jecel wasaaradda arrimaha gudaha inay noo kala cadayso inuu arrinkaas yahay arrin sax ah iyo inuu yahay arrin kale gudoomiyihii gobolkan weydiinay waraanu qaadan weynay inuu nagu waan xirayaa waxa kugu xarig buu nagu hanjab xaqna u mid qarankan u shaqeynay xaq baan ku leenahay gobolkan isaga ka mas'uula inaan wax badan alaan kana xilkaygii maanu daayicino xaq waxaan ku lahayn anagu waajibkaygii contract-ka waxaan anagu jecelahay bal arrinka inay nooc kala cadayso wasaaradda arrimaha gudaha oo ay wareegto ka soo saartay oranayso 3 bilood halkaas ay ku egi marka diiwaangelintii imika ma istaagtay mise way socotaa diiwaangelintii ilaa iyo imika maanta toodkani meel shaqeynaysa ma jirto goobihii waa la wada xidhay waa laga qaaday iyagana xidhay bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya dhalinyaradii ka shaqeynaysay diiwaangelinta madaniga waxaan u sheegayaa saxaafadda in wasaaradda arrimuhu guduhu noo igmatay nala gashay heshiisaa 3 bilood hadnala gashay 3 bilood heshiiskii aan dhammaan baa saaka naloo yimi oo bishu 10 marayso waxaana la yidhi shaqadii waa joojis waxaana ka soo gooday wasaaraddii arrimaha gudaha iyo tii maaliyadda oo tiri lacagtii bixin maayo markii aanu u tagnay barasaabkii gobolka wuxuu afbuuxan ugu yidhi waa heshiis la isla wada gaadhay gobolladoo dhan bay ka siman tahay gobolladii oo dhan baanu qaraacnay gobolkaygana qurana weeye arrinkaasi waxaanu u sheegaynaa saxaafadda iyo wasaaraddii qorsheyntana wasaaraddii arrimaha gudaha inuu ninkii dhammaa ee uga mas-uulahaa noogu jawaabay anagoo aan ka mudan waxaas oo ah dhallinyaradii gobolka ee u shaqaynaysay dadkooda inuuna idhaha waana xidhxidhaya anagoo wax eegina doonayna shaqadeedina gudano waxaanu u sheegaynaa madaxweynahana inuu arrinkaas si degdeg ah wax uga qabto khaasatan gobolka Saaxil